السلام عليكم واتاي داوديال soo dhawaada asxaabay kulan kala xiiso leh dadka ku xeel dheer luuqadaha linguistics-ka waxay sheegeen in dunidan aynu ku nool nahay looga hadlo in ka badan 6500 oo luuqadood wadanka Papua New Guinea oo dhaca qaaradda Oceania ama koonfur galbeed badweynta Pacifica ayaa ah dalka looga hadlo luuqadaha ku badan caalamka sidaas darteeda waxaa looga hadlaa 830 luuqadood waa in ka badan laba jibaar luuqadaha looga hadla qaaradda Yurub haddaba waxaynu soo qaadanaynaa shanta luuqadood dadka ugu badan ku hadlaan ku hadalkaasi waa dadka uu u yahay afkooda hooyo ama afka qalaad lagu oranayo native speakers waxaa jira luuqado badan oo caalamka looga hadlo balse dadka ku hadlaa ay luuqada labaad u yihiin afka mandariinka oo afka looga hadlo dalka Shiinaha ayaa ah afka dadka ugu badan ku hadlaan waxaana ku hadla in ka badan 1.3 bilyan oo qof sidoo kale waxaa looga hadlaa Singapore, Taiwan, Hong Kong iyo meelo kale oo kamid ah caalamka luuqada labaad waa Isbaanishka oo ay ku hadlaan ama afkoodu uu yahay dad kor u dhaafaya 406 milyan oo qof 90% waxaa looga hadlaa afkaas Latin America iyo Mareykanka 10% dadka ku hadla afkaas ayaa ah inta ku nool gudaha Spain taasoo muujinaysa sida boqortooyada Isbaanishka dhaqankeeda iyo afkeeda ugu fidisay meelo ka baxsan dalkeeda luuqada kaalid saddexaad ku jirta waa af Ingiriiska oo ay ku hadlaan ama afkoodu uu yahay dad kor u dhaafaya 379 milyan oo qof Ingiriistu waa luuqada ugu ballaaran dunida marka laga hadlayo tirada guud ee ku hadasha sidoo kale 140 dal wadamo ka badan ayuu afkooda labaad u yahay wadamada afkooda hooyo uu yahay waxaa kamid ah UK iyo USA Ingiriiska iyo Mareykanka kaalinta afraad waxaa ku jira afka Hindiga oo ay ku hadlaan in ka badan 341 milyan oo qof kuwaas oo uu yahay afkooda hooyo waxa looga hadlaa wadamada Hindiya iyo Pakistan kaalinta u dambeysay shanaad waxaa ku jira afka Carabiga oo ay ku hadlaan in ka badan 319 milyan oo qof afka Carabigu waa sida Ingiriiska waana luuqad ballaaran balse dadka afkooda hooyo yahay ayaa ka yar dadka kale daawade haddii aad muuqaalka halkan soo gaadhay like saar muuqaalka siina share gare. Wassalaamu calaykum.